Madaxweynihii hore ee Somaliland Daahir Riyaale Kaahin ayaa la soo xiriiriyay Home Cable TV isagoo hambalyo u diray madaxweynaha cusub ee la doortay Muuse Biixi. marka horeysa waan idin salaamayaa marka labaad waxa leeyahay shacbiga reer Somaliland doorashadii u qabsoontay ee nabadda ugu qabsoontay waan ku hambalyeynaya waxaan rajeynayaa mustaqbal fiican haddii Ilaahay raaco madaxweynaha la doortayna waan ku hambalyeynaya xilka loo doortay ilaahayna ku asturo Muuse Biixi guddoomiyihii musharaxa xisbiga kale ee isaguna tanaasulka sameeyay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi isla ku hambalyeynaya tanaasulku sameeyay guud ahaan Somaliland waxaan rajeynayaa horumar waxaan leeyahay midnimo iyo wadajir baan idin rajeynayaa inaad isfahan iyo walaaltinimo dalka loogu wadaago haddii Ilaahay raaco Madaxweyne Daahir Riyaale Kaahin waxa uu Home Cable TV weydiiyay su'aal ahayd maadaama ay jirtay kala qaybsanaan xooggan oo ay sababtay ololihii doorashada ee dhawaan ka dhacay guud ahaanba dalka oo isla markaasina kala qaybsanaan ay muuqato bal waxa uu talo iyo waana ee u dirayo guud ahaanba shacbiga Somaliland waxa uu madaxweynuhu ku jawaabay horta waa marka koowaad ee madaxweynaha la doortay waan dhigtay inuu yiri aniga tii doortay iyo tii kayba waa intii taas oo laga dhameeyo ayaa midnimada keenaysa waxaan kula dardaarmayaa madaxweynaha cusub midnimada iyo isku keenista ummadda hawsha ku taageeray ilaahay ku gargaro isaguna ka dhameeyo ballanka uu qaaday haddii Ilaahay raaco mar kale ayaa Home Cable TV waxa uu weydiiyay Daahir Riyaale Kaahin madaxweynihii hore ee Somaliland bal waxa uu ka yaqaano ama se uu ka xasuusto Muuse Biixi madaxweynaha cusub ee la doortay waxa uu ku jawaabay Muuse nin cusub ma hele waa garanaya kowdi dalkana waa nakii soo dawladda xisbiyaan waxay wax dhib oo taalimo jirtay maanta waxaan u diray waa hambalyeynaa وقولنا وانسكولين أيين يقول فلان أنا وانولا إسلوي ليه. محمد كراسي Home Cable TV هرقيسة.